السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عباسة يا جنالكي قبط هيبدي يا شرف تقنية دين أسلوبية سنان maanta barnaamijkani soo bandhigay waxa weeye in reaction ka bixiyo waxyaalaha fajaca ee la yaab kale ee ka dhaca showyasha fanaaniinta Soomaalidu ay qabtaan. Inta barnaamijkeena aan bilaabin shicibka channel-ko like ta share ta iyo subscribe ka haylo barnaamijkeena fajici ugu horeeyay bal ha soo qaadano daawasho wacan. sad videoga makaarkaysiin waxa ugu horeeyay oo fajac ka qaadaysa oo ka yaabinaya in shicibkii xafladda ka soo qayb galay ay fanaankii u xiraraan waxa taa ka sii daran ka dhaadhaanka Israa'iilka madoosita aqligiisu wuxuu siiyay dadka inta la igin horjoogsado kaligii celiyo war bal maxaa dhibay kulay ma celin karay annako arintan halkan ku dhaafayna videoga ma muuqaalka labaad hawnta laabsan shibay ulaysa muuqaalka labaad saad ka arkaysiinba waxa ugu horeeyay ishaada qabanaysa waxa weeye inay fanaaniintii dhuka ay lugeynayaan dadkii xafladda ka soo qayb galay ay masraxa dul joogaan oo walibana si ciyaalka is xidhiidhinaya ar Soomaali hadaan nahay maxaan la yaab badan waxa kaloo ka yaabinaya showyasha fanaaniinta Soomaalidu ay qabtaan saddex nooc oo gabdha inaad ka aragtid showga kuwa la kulmaan mid waa faydato garan Israel bisata wadana kanda reeji wutinahay sidana soo gaadhay inay Soomaaliya gudaheega gabdhuhu garan Israel aanan xiran karin oo xir qabanayo la xiri karo wada kuwan showga ka soo qayb galay ma gabdho wasiirba oo xir kuma qabto حاجية هي حاجية نزافسنو هورلا هي عالنا كورسنو kuwa halka ku dhaafbo nooc labaad kuwa asturano showga ka soo qayb galay walibana fanaanka la tuweysay oo la dansaya kuwana diinta iyo asturnaantu inay saa u shaqeen ayaa u sheegay tumaysa waxa kaloo la yaabeen showga Soomaalida ina fanaanka qasab taswiir lagu la galo isagoo walibana heestu heesay aan dhameyn جعل باي قلياني لجل بجب سدياني جيكو دمبكو ساقي جعل باي هلياني iyo sad muuqaalkan ka arkaysiin waa kuwa asturan oo aanan asturnayn kuwaasi dar asturan intay ku soo xidhan ay isku dhajinayaan warda kuwa ceebtooda inay cilada taal ayaa u sheegay isoo ay ka warhayaan oo ay u jeedaan Soomaaliya dhaqankeena iyo diinteenu halku u socdaa arintan su'aashan ku dhaaf social media kada xadina suradeedan raadina dunidan ka raadina hees markay saa u bilaamato fanaanku inuu masraxa ka dhaadhaco waa shardi weey waxa shardi ka dhigayna wixii ka soo qayb galay meesha wuxuu fanaanku heesiba masraxiiba iyaga iska yeeshay warwaakana ma iyaga heesay kuaway mami kuaway lolita waxa kaloo laga waayay showga Soomaaliyeed nacnaclooyinka live-ka horte gargarada la caymo kuwaasoo kuwa istusayaan la isweydiinayo ilaa maanta aroha fanaaniinta Soomaalida maxay dhibaato haysataa ilaa showyashan waxay la kulmaan musallid ama qalad loo ku socota ka kaamirada weynsiita u fiirsada ee sharka bleega leh liil baliil buu iska loolay inuu dilo ayuu ku dhow yahay waxa kaliya ku dilayna waa selfie ama live dexda bastafino qorto wati lako haku darin ha umudin xaawatako waxyaalaha suurtagal ee showyasha Soomaalida ka dhaca waxa kamid ah ina fanaan dhalan waayo shicibka lagu dhax waayo oo waqtiga dambe la helo sida fanaanka niminka aad ka arkaysiin muuqaalka uu liil baliil gacanta jiidayo waa wax la yaab leh oo fajac barnaamijkeeni inta uu maanta noogu dhan yahay shicibka channel-ko like haylobi hadduu videogan jadid kugu yahayna abonneega ama subscribe-ka haylobi comment-kana ra'yigiina ka dhibta iyo khamiista soo socota iyo barnaamij jadida noo kala kaxeeya هيبدي يا شرف تقنية دين أسلوبية سنان أرلي